dadweyne aad u fara badan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa maanta waxa ay si weyn uga faa'iideysteen fursadii uu dhawaan shaaciyay sheekha xarunta cilaajka ee Daarutooba Sheekh Cabdullaahi Cumar Cabdi Sheekh Rusheeye Yare taas oo ahayd in xarunta Quraan saarkeeda laga dhigay mid lacag la'aan ah iyagoona dadkan ka soo kala safray wadamo dhowr ah oo Soomaaliya ka baxsan qaarkoodna ka yimid gobolada dalka isku naxariisashada iyo isku dhimrinta oo ah wax ay nafareyso diinteena islaamka ah ee munazalka ah ayaa sheekha ku dhalisay in uu ka daayo ama ka dhaafo bulshada xanuunsan gabi ahaanba khidmadii yareed ee Quraan saarka dadka lagu saari jiray halka qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay daawooyinkii herbarka ahaa ee xarunta uga imaanayay wadamada qaar ee muslimiinta ah dadka loo qoro jiifka ee ka kala yimaada wadamada caalamka ee raba inay degaan hoteelo ay xaruntu u fududeysay in muddo 7 maalin ah u dhaafto lacagtii kirada ahayd taasoo dhalisay in dadkooda xanuunsan ka yimid wadamada Itoobiya iyo Hindiya kana faa'iideystay fursadaasi ay u mahadceliyaan maamulka xarunta hooyo waxa ka keenay Hindiya buraana madaxa laga gubay buro kadib xanuuno badan aan qabtay baaritaano badan aan ku sameeyay negative faldahay marka waa soo celiyay iyadoo sideed u xanuunsan meeshaan aan keenay hadda Quraan saarka waxa ka dul qeyliyay insha Allah inay ku fiicnaataan rajeenaa Quraan saarkana caadi free ah ku soo galno wax lacag ama la weydiin Bashar Xasan waxaan ka yimid Itoobiya Quraan saarka Daarutooba jooga dadka waxaan ay doonayaan jiray halka doolar daawa bilaash ka looga dhigay waxa aad iyo aad macallin maasin ilaahay nagu aftar dhamaan dad baan sidaanay dad baan sidaa aniga ilmahay iyo xaaskayga nimay marka xaruntuna aad buu fiican tahay caafimaadka ka dareemay lacag la'aan uu iska ahaa awalba anaga waqtigii hore intaan baranin cilaajkan xanuunku nahay cilaajida kale wixii dadka ka hor joogay oo ka cilinay waxay ahaayeen oo ugu hor dhici laayeen maadaama lacagtu ay badan tahay $10 yoomi inay xanuunta wal dareemi karaa sheekha xoosh joogo $1 waay ma sha Allah tabarakallah caafimaadka iyo nidaamka iyo tuftiisa aan la soo koobi karin aniga waxaan la ay lugaha aad la iiga haayay qof waxaan ahay kulay 30 sano ama 2 sano ay u raacsan tahay ilaahay baan ku dhaartay gaariga guriga dhex yaala ma raaci karin bajaaj ma raaci karin iridaan ilaa iyo meesha hadda laga raacayo baabuurta iska daayay albaabka inta ka dego jidkaas ma istaagin karin Sheekh Cabdullaahi Cumar Cabdi Sheekh Rusheeye Yare ayaa ayiday balanqaadkii ahaa in ilaa iyo dhamaadka bishan Quraan saarka wax qarash ah laga qaadi doonin bukaanada xarunta yimaada ee u baahan in la dabiibo maanta waa maalinkii oo 8aad markii laga bilaabo xilligan ugu talagalnay ma aragtaa ama aan go'aansanay in ummadda si free aan ugu shaqeyno waa maalinkii 8aad baa ma aragtaa la taagan yahay ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala in badan ma aragtaa bulshada kamid ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku caafiyay quraanka maanta la akhrinay waxa kamid ah dadkii ma aragtaa quraanka la saaray ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadaba ugu daray oo Hindiya laga keenay ma aragtaa qalimo badan lagu sameeyay haddana waxba looga garan waa quraanka ilaahay subxaanahu markii lagu akhriyay cadawgaasi ka qayliyay waxa kale oo kamid ah aaba ma aragtaa isagana kilihiisa lagu sheegay cancel yihiin oo ma aragtaa aan shaqeynaynin ay bedel yihiin oo ma aragtaa dhaqid lagu waday muddo sanad iyo xoogo oo la dhaqaayay haddana ma aragtaa wixii ayaga cadaaday inay ahaayeen shayaadiin khaasatan sixir hadda ilaahay baa iskale subxaanahu wa ta'ala leysad bixilatina wala biquwatina awoodina ma aan xeeladana ma aha laakiin waa awood ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa muuqaaladan u baahinayno ama ma aragtaa ummadda aanan la wadaagayna wax kale ma ahan waxa way ummadda muslimiinta inay fahmaan quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu daawo yahay tilaabada ugu horeysa qofka muslimka laga rabo inuu u degdegan inay tahay kalaam rabbil caalamiin maxaa yeelay ilaahay baa nagu amray subxaanahu wa ta'ala fafirru ila Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiiqa loo cararo wax kasto iyo dhibaato kasto qofka ay taabata waxa la rabaa inuu u cararo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa marka saadarteeda ummadda muslimiinta daafaca caalamka ku nool dhamaan waxaan ogeysiinaya insha Allah ta'ala khaasatan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ee nawaaxigeeda in shaqada si toos ah u socoto oo ma aragtaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala dad badan sabab ma aragtaa inooga dhiga maanta waxaan ilaahay ka rajaynayaa bidilaahi ta'ala ducada
bukaanada ay ii duceynayaan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan oo kamid ah bukaanada imanayaanna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadkooda soo iga dhigo tuftay taxliisheeda ilaahay aqbalo bisabab ducada maaragtay bukaanada ay imaanayo. Cumar Buule, Tusma TV, magaalada Muqdisho.